waa sababta kooxaha Ingiriiska ee mar walba yihiin kuwa ugu yaabka badan ee mar walba la yaab ay samayn karaan. Xalay wixii aan ka waynay Champions League waxaan ka helnay European League, sababtoo ah kambaagay la yaab leh ayaa ka dhacay ciyaartii Man United oo kaleeto. waxay ahayd incredible, waxa indhaha laga qabsan karin, mucaarad iyo muxaafidba la yaabkeeda u daarnaa. Lazio naftigeedu iyadoo 3-0 marayso ayaa waxaa laga dhaliyay gool, taasi oo ka dhigan tahay in ciyaartii ay doonto rigoorana toos lagu reebay, Lazio-na gurigeed loo diray. nimankii Tottenham ahaa 1-0 ayay Frankfurt inay imaadeen ayay ku badiyeen, taasna waxay ka dhigan tahay in ay hadda semifinalka iska xaadiriyeen. akhbaar kale ayaa jirto oo aad iyo aad u weyn ah oo Premier League u ah sumcad weyn, sababtoo ah haddan aan kula hadlayo waxaa official ah in 5 naadiyo ay ka qayb gali doonaan Champions League, balse waxaadan ogeyn haddii Tottenham iyo Chelsea, Tottenham iyo Man City, Man United haddii ay finalka tagaan Europa League, midkii qaado waxba kama gelin, automatically wuxuu ugu qayb gali doonaa Champions League. micnaheedu waxay ka dhigan tahay 6 kooxood ayaa Champions League imaan doonto sanadka soo socda hadduu Ilaahay na gaarsiiyo. mideeda kaleeto Europa League waxay noqon doontaa 3 kooxood oo Conference koobka hadda ay Chelsea ay ciyaarto, iyada naftigeeda 9 kooxood ayaa la filayaa oo Ingiriis ah inay ka qayb galaan tartamada Europe oo dhan. taasi waxay tahay dhibcaha ugu sarreeya ee keensan, maadaama 4 kooxood hadda kamid ah in ay joogaan semifinaalada koobka hadda Europe ay ciyaarayaan. waa akhbaartaasi akhbaarta ugu weyn oo Britain lagu soo daabici doono joornaalada dunida oo idin, maadaama haddan Ahdi iyo Manchester United iyo Tottenham ee final iska xaadiraan ee 6 ay noqon doonaan inay Champions League ku yimaadaan. what the game, waxaan ciyaar afka laga qabsan karin, indhaha laga qaadan karin. United waa dadaasheen, comeback waaliyaa samayseen, laakiin ayagoo Lyon 9 ruux ah ay comeback sameeyeen, balse comebackan ayaa ka xurun badnaa. Maguire ninkii strikerka ah wuxuu qabo waay ayuu Maguire ay ka heleen. haddaba waxaa leeyahay Arteta maadaama oo qaddax oo weerar ka dhigay, Arsenal difaac weerar ma ka dhigi doonaa. haddaba inta ay darajato kuma astara joogayo. Mac salaama.